السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود حنتنا ملك سؤال جبتان وحائد لين هاي كسر دوادة شيكا وما عدرنا تاريخ سوماليا. هذا لقاشة كيو تاريخ درك على هاي ابن يوارتا. تاريخ وحاسيتوس إدين سجين دونا أنا جو حسين محمود حسين. لكن كاميرا وحائق تاجر ساحل كي محمد داهر المديد كم عرف مصر وإسكيلها. هاي ذيك قد حبحوا تاريخ سوماليا هي إذن كبا عدبا بحي أبا شعب حكسو قري كرتان هوس سيدا كومنتي حانا ونوسو ديب كرتان وانا كما سنتين داود الشيديني يتاقرين مرو بنوبو جسان وكما سنتين برنامجك وحاشي توستا إذي سو جيدي دونا أنيقو حسين محمود حسير لانك فرسميقان كينا ساري محمد داهية المديد كما عدر مصر وإسكيلي لحام صومالي نهايا نبي رحمة نقنكرو ونوري شرفتي بحضر كي نهايا وليك مدادو dalka Soomaaliya wuxuu ku yaala geeska Afrika wuxuuna ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan tahay 6,350,5 kilomitir square waxaana uu xuduud la leeyahay bari waxaa ka xiga badweynta Hindiya waqooyina waxaa ka xiga Djibouti galbeedna waxaa ka xiga dalka Ethiopia halka koonfur galbeedna ka xiga dalka Kenya Somali أتكبري وعنيني وتنشر أهيني تريدنا لويني صومالي أتكبري وعنيني وتنشر أهيني تريدنا لويني dalka Soomaaliya waxa uu yahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika wuxuuna leeyahay xeeb rikeedu tahay 3,333 kilomitir tirada dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 8 milyan qof ka Soomaaliya boqolkiiba 60 waa dad darbaadiye ah boqolkiiba 20 waa reer magaalo boqolkiiba 15 waa dad beeraley ah halkii boqolkiiba 5 ay tahay dal kalluumaysato ah أدونك بس بيقود كدقيني أنا قسم ما يسندارو أنا الحس كنتو يمادو أنا كان دوش بالليابي أداك وديان أدونك بس بيقود كدقيني أنا قسم ما يسندارو أنا الحس كنتو يمادو khubarada ka facloota taariikhda dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay Soomaaliya ugu taagan yahay labo ero oo la isku geeyay kuwaas oo kala ah soco iyo maal iyadoo eriga soco micnahaasi loola jeedo soco halka eriga maalna uu micnihiisu kasoo jeedo lis marka labadaas eri la isku geeyo la isku daro waxa uu noqday soco iyo maal khubarada qaarkood waxa ay sheegeen in magac Soomaali uu asal ahaan ka soo jeedo eriga Carabiga ma oo fisir ahaan micnaheedu tahay shacab oo badan leh Soomaaliya taariikhyaanada qadiimiga ah waxa iyadana laga helaya micno kale iyo iyadoo khubaradu ku doodayeen in erigaasi uu ka yimid sama oo micnihiisu yahay nig waranka dheeraas Soomaala ayaa la sheegay in uu ahaa ab iyo wasiirkii ay ka soo jeedaan dadka Soomaaliyeed Xuseen Maxamuud Xusayare kulanka dhalinyarada Muqdisho